wadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan aan u ballan qaadaya inta aan noolahay haddii aan madaxweyne ahay iyo haddii aanan madaxweyne ahaynba marna inaanan raalli ka noqonaynin taageeraynin garab istaagaynin mitir ka mid ah biyaha Soomaaliya in la qaato oo lagu qaato ogaalkeen iyo rabitaankeen iyo ka raalli ahaanshaheen inaan lagu qaadanaynin ummadda Soomaaliyeed u ballan qaadaya haddaan xilka ka degana qadiyadaas waa u taaganahay haddaan xilka sii hayana qadiyadaas waa u taaganahay biyaha Soomaaliya annaga iskale inta yarta ee la isku haystaa waa yarta badda aan leenahay marka loo fiiriyo laakiin annaga iskale mitir hanoo ahaato haday doonto annaga leh 150,000 oo square kilometer waaye annaga iskale 3,000 kilometer nacmu 1.8 milyan 1 milyan iyo 800,000 oo kilometer square waa biyeen 150,000 wax yar ay ka tahay laakiin 1 mitir haday tahay annaga leh sabab aan uga tanasuli karnaa ma jirto sabab aan u deyn karnaana ma jirto shalaan lahayn awooyaasheena lahaa annagoo nool maanta leh kuwa naga dambeeyo biri ay lahaan doona khayraada ku jira iyo barwaaqa ku jirta iyo ma aha waa mabda waxa aan leenahay inaan cishano ilaashan marka dadka Soomaaliyeed mar kale waan u hambalyeeyay waxaan hore u weydiisay dadka Soomaaliyeed inay Ilaahay baryaan in Ilaahay nagu taageero qadiyadaas badda waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ducadiina Ilaahay aqbalay baryadiina Ilaahay aqbalay dadaalkeena Ilaahay la jiray haddii aanu Ilaahay dadaalkeena la jiri lahayn marna ma ay suuroobeen laakiin dadaalkeenu Ilaahay la jiray iyo daacadii iyo niyadii iyo wixii aan xaq u lahayn oo aan ku taagnayn ayaa sabab u ahayday muxuu ahaa guusha maanta taariikhiga ummadda Soomaaliyeed soo yeetay